Assalaamu calaykum. Daawada dhaqanku waa hab nololeedka bulsha u nooshahay sida agabka afka, cuntada, fanka, suugaanta, caadooyinka iyo habka isku xidhnaanta ehelka ama qoyska, sida qaraabada, raximka iyo xididka. Dhaqanku waxa uu astaan u yahay jiritaanka qowmiyad, deegaan iyo degal leh oo lagu aqoonsado laguna tixgeliyo waxa ay yihiin iyo weliba waxay aaminsan yihiin, taasoo iyaguna dhexdooda isku xushmeeyaan iskuna qadariyaan. Daawada dadkeena Soomaalidu wuxuu leeyahay dhaqan soo jireen ah oo aad u gundheer oo leh hannaan iskaashi iyo istixgelin, jirrido iyo laamo ballaadhan oo aan la soo koobi karin. Balse haddii aanu ka soo qaadano tusaalayaal kooban, waxay Soomaalidu leeyihiin af u gaar ah, waxay lahaan jireen labis u gaar ahaa, hub u gaar ahaa, degal u gaar ahaa, iyo wixii la mid ah. Habka iyo hannaanka qofka martida ah lagu sooriyeyn jiray, laguna magacaabi jiray marti-soor. Qofka caydhoobo lagu xoolayn jiray, laguna magacaabi jiray goyn. Qofka guursado lagu caawin jiray, laguna magacaabi jiray kaalo. Reerka laga guursado loogu culuq celin jiray, laguna magacaabi jiray yarad iyo dhibaat dib loo celiyo. Dhaqanku waxa uu qofka bari jiray afka Soomaaliga oo u qaybsama hadal iyo hawraar. Waxa uu bari jiray waajibaadka la gudboon, maqaamka uu bulshada ku leeyahay, iyo waxa qof kastaa ka mudan yahay ama kaga habboon yahay. Waxa uu lahaa wax la dhowro iyo wax la dhaafo, xushmad iyo xishood, milge, maamuus, xidid, xigaal, qaraabo, casabo, xigsiisin, godob reeb iyo berimagaydo. Waxa uu lahaa hannaan wax la isu siiyo iyo sharaf la hiigsado sida deeqsinimo, sooriyo, muquuno, kaalo, goyn, yarad, dhibaat, maal iyo gaadiid intaba. Daawada waxa dadku u kala soconaa guurti, oday, garmadoobe, xaas walwaal, inan, kuray iyo wiil ama gaban. Waxa kale oo lagu sifayn jiray nin rag ah, nin rag kalkaal ah, rife iyo rife kalkaal, halka haweenku kala ahaa gabadh yar, foodley, sindheer, gashaanti, garab weyn, aafo, carmal, islaan, marwo, xilo janno iyo wixii la mid ah. Waxa uu lahaa qaab uu ku kala baxo sida xeerbeegti, garcadaawe, xanaan, mudici, mudacaaley, hojiye, eesayn ama duritaan, dhaabad, xukun iyo wixii la mid ah. Waxay lahaan jireen hoy u gaar ahaa oo laga samaysto cawska saddex dhaclaha ah, toddobaalaha, googooska, isku joogga aloolka, kabada iyo huga lagu xaragoodo. Raggu waxa uu xidhan jiray labada go' ee guntiga iyo garabsaarka, shaadhka, macawista, halka haweenkuna ay xidhan jireen toobka, diraca iyo googarada, malkhamada, gambada, masarka, saddex qaydka, boqorka iyo dhaclaha. Cuntadu waxay ahayd cad iyo caano, timir iyo hadhuudh. Dadku waxa uu ahaa xoolo dhaqato oo wuu yaraa. Waxaa jiray qadhaab sida midhaha kala duwan, madheedhka, hohobta, dhafaruurta, gumushaaga, uneexada, quwaaxa, cambuusha, gocorad iyo wixii la mid ah. Waxay lahaan jireen farsamo u gaar ah iyo farsamo yaqaano, iyaga oo birta ka soo dhalaalin jiray dhagaxa. Waxaanay ka samayn jireen weelka iyo agabka sida gudinta, mindida iyo hubka sida waranka, fallaadha iyo murjiska. Mararka qaarna waxaa la isticmaali jiray qori sida waranka loo qoray oo la odhan jiray garmaqaate. Sidoo kale waxaa jiray hannaanka ay isu daaweyn jireen oo ahaa geedo gooyo ama dabka iyo wixii la mid ah. Waxyaalaha aynu soo sheegnay waa la isticmaalaa, qaarna lama isticmaalo duruufo jira awgood ama dayac ay doontaba ha noqoto. Waxaa maanta jira burbur badan oo ku wajahan dhaqankii, gaar ahaan qaxoontiyadii Soomaalidu gashay ee ay ku tagtay wadamada caalamka. Waxay dhaxal siiyeen mushkilado waaweyn. Tusaale, waxaa dalkii dib ugu soo noqonaya 5 qof oo walaal ah oo kusoo kala noolaa 5 dal oo kala duwan, oo kala luqad ah, oo kala dhaqan ah. Ugu horreyn, qoyskii iskhilaaf ayaa ku imanaya. Marka labaadna waxay sitaan dhaqamo kala duwan oo is hirdamaya. Halkaana waxaa ka imanaya hoos u dhac dhaqanka saameyn badan ku yeeshay. Waxaa taa la mid ah aqoonyahanka kala duwan ee cilmiga u doonanaya wadamada kala duwan, iyagoo la kulmay dhaqamo kala duwan oo mid kastaaba uu soo xambaartay dhaqamada qayb ka mid ah. Inta badan waxbarashada diinta waxaa soo dhex raacay dhaqamada Carabta iyo Turkiga. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxbarashada maadiga ah ee iskuulada oo ay soo dhex raacaan dhaqamadii reer galbeedku. Daawada wixii fikir iyo macluumaad aad hayso, commentiga noogu reeb. Wassalaamu calaykum.